kadib markii ay muddooyinkii u dambeysay ay ciidamada booliiska gobolka Togdheer ay ku hawlanaayeen sida ay gabi ahaanba u cudub tiri lahaayeen ka ganacsiga maandooriyaha ayaa hawlgal ballaaran oo ay sameeyeen ciidamada booliiska saldhiga Faarax Umar ee magaalada Burco oo horkacayo taliyaha saldhigaasi Axmed Cawil Cabdilaahi Ganay ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen laba maxbuus hal gaari 282 dhalo khamri oo ah nooca loo yaqaan Draychim Sakariya Shirwac oo kamid ah garsoorayaasha maxkamadda gobolka Togdheer ayaa halkaasi kaga dhawaaqay xukunna maxkamadda ku riday sanayaashaasi xukunka maxkamadda gobolka Togdheer waxay u aqoonsatay dambiilayaal sida waafaqsan qodobka 123 xeerka habka ciqaabta kow dambiile Maxamuud Jaamac Cabdi Dalmaawi ina Saynab Cabdi oo 28 sano jir ah iyo dambiile Cabdicasiis Jaamac Maxamuud ina Shukri Xasan oo 27 sano jir ah maxkamadda gobolka Togdheer waxay dambiilaha koowaad oo ah Maxamuud Jaamac Cabdi Dalmaawi ina Saynab Cabdi 28 sano jir ah waxay ku xukuntay 3 sano oo xarig ciqaabeed ah isagoo wada ka ahaa gaarigii khamriga soo gelinayay magaalada iyo 6 bilood oo xarig ciqaabeed ah iyo 40 jeedala oo ay kaga xukuntay qodobka saddexaad xubintiisa koowaad ee xeer number 2002 kadib markii ku cadaatay inuu sakhraansanaa isla markii la qabanayay dambiilaha labaad oo ah Cabdicasiis Jaamac Maxamuud ina Shukri Xasan oo 27 sano jir ah maxkamaddu waxay ku xukuntay 1 sano oo xarig ciqaabeed ah oo kaga xukuntay qodobka 298 xubintiisa koowaad xeerka ciqaabta guud iyo 1 sano oo xarig ciqaabeed ah oo kaga xukuntay qodobka 283 xeerka ciqaabta guud maxkamaddu waxay ku xukuntay dambiile gaari number 47477 oo ah Land Cruiser in ganaax dhan 5% qiimaha gaariga xeerlaaliyaha gobolka Togdheer Axmed Cismaan Mire iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Togdheer Gaashaanle Cabdi Muuse Cabdilaahi ayaa digniin adag u diray cid kasta oo ku hawlan ka ganacsiga maandooriyaha khamriga waxaan halkan hambalyo uga jeedinayaa ka xeerlaaliyihii madaxii xafiiska xeerlaalinta gobolka Togdheer Axmed Cismaan Mire booliiska hadii alla ku leeyahay gobolka Togdheer ee ka hawlgalay ee ka soo qabtay khaasatan taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhiga booliiska Faarax Umar waxa kale oo aan runtii aan wajigiisa ka lahayn taliyahan Cabdi Muuse soo noqodkiisii barigii horena muddadii aan wada joognay khamriga waa la qaban jiray soo noqodkii maantana Cabdi Muuse arintaas way la bilaabatay muddo ayuu naga jiifay taasna uu kolleyba waa hogaaminta iyo is-abaabulka iyo is-dhiirigelinta ciidanka bilayska ee soo qabtay ee uu taliyaha saldhigu u horeeyo wada arkaysan khamriga meesha yaala ciidanka bilaysku wuu gamba walwal ku jiray ururinta khamriga iyo wixii dhaqan xumaa iyo wixii shaqada xagga ciidanka bilayska dardargelinta ciidanka bilayska anagoo fulinaa maamirta madaxdayada taliyaha guud ee ciidanka booliska oo run ahaantii had iyo jeer u heegana wax qabadka bulshada sidii loogu qaban lahaa waxyaalaha caynkan xunna sidii wax looga qaban lahaa anagoo fulinay iyo shaqadeedii waajibka nagu haydba ciidanka bilayska waxay loola ku wadaan sidii wax uga qaban lahaayeen arintan maaragtay khamrigan iyo wixii lamida iyo wixii sharci darro ku soo gal noocay doonaanba ha ahaadaan waxay ciidanka bilaysku soo qabteen khamriga aad arkaysaan isla wiigan gudihiisa khamri ilaa 800 oo litir gaari ayay soo qabteen markii koobaad maaha markii labaad maaha markii saddexaad maaha ugu dambeyntii tallaabadan ay qaadeen ciidamada booliiska gobolka Togdheer ayaa ku soo beegmaysa waqti maalmihii u dambeeyayba guud ahaanba gobolka Togdheer laga dareemayay hawlgal ballaaran oo ay sameynayaan ciidamada booliisku kuwaas oo horkacayo taliyaha qaybta booliiska gobolka Togdheer Gaashaanle Cabdi Muuse Cabdilaahi wa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.